kalfadhigii 56aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku yeesheen habka maqalka iyo muuqaalka oo uu shirgudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan arrimaha doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Warmurtiyeedka ayaa u dhignaa sidan: arrinka ka soo yeedhay Muqdisho ee ah baarlamaanka Soomaaliland matalaya ayaa lagu dooranayaa xamar waa meel ka dhac iyo gaf loola bareeray qaranka Soomaaliland. Horeba Soomaaliya waxay u waday colaado ka dhan ah qarannimada Soomaaliland, balse tan maanta way ka daran tahay. Qofka Soomaaliland ee qaadanaya quursiga in xamar laga magacaabo waxay qiimo rid ku tahay naftooda. Sidaa darteed muwaadiniinta Soomaaliland ee isku dayay inay ka qayb galaan matalaadda been abuurka ee xamar lagu hayo waxay jabiyeen go'aankii labada gole, waxaanay kana hor yimaadeen xeerarka iyo shuruucda dalka u dejisan, waxaanay mudan doonaan ciqaabta sharci ee ku habboon. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa golaha warbixin guud ka siiyay xaaladda nabadgelyo dalka. Golaha wasiiradu waxay dood dheer iyo falanqayn ka yeesheen wax ka beddelka iyo kaabista xeerka gaadiidka iyo wadamarista oo horyaalay golaha wakiilada, waxaana qodob looga dooday xeerkaas oo ahmiyad weyn u leh qaranka. Sidoo kale waxa uu goluhu dood ka yeeshay dhibaatooyinka iyo shilalka ay dadkiiyo dalkaba ku hayaan gaadiidka aan waafaqsanayn haadka iyo wadamarista iyo weliba gaadiidka yaryar ee ku soo badanaya dalka, isla markaana ciriiriga ku haya isu socodka. Iyagoo goluhu fadhiyada dambe ka soo saari doona go'aamo lagu xadidayo gaadiidkaasi la iskuna waafajinayo haadka baabuurta iyo wadooyinka. Maxamed Khaalid Axmed Cabdi, wararka Bulsho TV, magaalada Hargeysa.